ما شاء الله سوق وين واهن aad buu wanaagsan yahay shaqadiisuna maalinba maanta ka dambeysay way soo kordhaysaa awal isagoo waahan baa la yaqaanayo carisho yar yar iyo wax yar ka furan yihiin maanta waahan aad aragtaan bilinada kor loo fiirinayo caalam oo lacagta adduunka iyo waxaan ku yiri shaqada ka socota aydan malaynaynin ayaanu joognaa alxamdulillah rabbil caalamiin baa leenahay ilaahay baa mahadle ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkayga uu noo geliyo barwaaqo iyo bashbash halkan waxay ila jooga hablo kamida hablaha suuqan maanta ka adeeganaya maxaa dhigtaa walaal waxaan dhignay aytiga adiibsan والله نمبر 1 صاحب وكيش تمسا قرانا هي ما شاء الله ماشي الله اسكو جعلامad quraysan ma dumarka ka reebtaa mise ragga keeba u badan deer saaxib dumarka daanyarada wadana ka qaadna lacagta maxaa dumarkuna on kiibinaa dumarka noo fiicanay wallahi suuqa waahan aad iyo aad buu wanaagsan yahay kaas aad buu wanaagsan yahay sidii hore iyo iminku ka sii wanaagsan iminku faal helayo gaarigu soo galayayo dadka aan iscidhiidin adoo iminku ka wanaagsan yahay sidii hore ka qurux badan yahay ka dhismo wanaagsan yahay iminku waxay moodeen la soo qabsanayaan suuqii waan gartay mise dukaanba ku yaala sectioniska ku yaala iyo qaybaha ku yaala suuq way farabadan yihiin aad buu badan waana dhowr dabaq laakiin xuduntii ugu muhiimsaneed oo saribada ayaa ka xidhan laakiin qaybaha bariga oo kale galbeed oo kale waqooyiga ilaa koonfurta meheradu way ku wada yaalaan sidoo kale cuudadkiina waan haysaan cuudkii waxaan haynaa filsan bukhur oo wallahi inaan wali adduunka intaan joogay cuud iqanciya cuudka udgoon oo noloshayda aan arkin ayaan haynaa isagana iyo cadaro udgoon aan idinka go'aynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh soo dhawaada daawadayaal waxaan ku sugannahay suuqa weyn ee waaheen baan ku sugannahay oo dhawaan farta laga qaaday aniga waxay ugu dambeysay berigii hore ee laakiin kan cusub la dhisay ma iman waa markii ugu horeysay imika waxaan ku suganahay mid ka mid ah ganacsiga ku dhex yaala suuqan halkan waxay igula sugan mid ka mid ah dadka halkan ganacsada magacayga sheeg walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabdalle oo kugu soo dhaweynaya suuqa waaheen Cabdallow aad baad mahadsantahay walaal waxaad ii sheegtaa ka waran suuqan waaheen suuq wallahi ma sha Allah wadiga arka quruxdiisa haye laakiin maxay toolay sidii hore iyo sida nimika sidii hore lacag badnayd ma la oran karaa dadku way la soo qabsanayaan aad u fiican laakiin walaal ka waran dhismayaasha sida loo dhisay miyaanu sidii hore ka qurux badnayn oo aanu imka waxaad moodaa markaan dhex marayay caalami baad moodaa meesha oo waxaad moodaa inaad meelo kale oo caalamka aad joogto markaa miyaan ahayn meel wanaagsan ma la idin dhisin ma sha Allah aad wadiga arka quruxda walaalow maxaad iibisaa wadiga arka halka yellow dambanibiya oo shandadihii wixii guriga oo dhan alaabtii guriga oo dhameystiran dukaanka magaciisa waa maxay Iidaan store baa hamuugaanina ku soo yaaca qofkii daawada YouTube-kan ee halkan imaada discount basinaysa samaysa ya waxaad ka deynaysaa ay aad baad mahadsanteen boqolkiiba laba shan uga dhig saac shan way halka wali waxaanu ku guda jirnaa vlogii aanu ka duubaynay suuqa weyn ee waaheen halkan waxa igula sugan inan kamid ah hablaha ka ganacsada suuqan magacaaga sheeg walaal idil faad cabdi cali baa la yiraahdaa idilay walaal aad baan ku salaamayaa adigoo mashquula oo ganacsiga ay ku dhex jira hadana naga qashayna wareysigan aan ka qaadno ka waran suuqa weyn ee waaheen ma sha Allah suuqa weyn ee waaheen aad buu wanaagsan yahay shaqadiisuna maalinba maanta ka dambeysay way soo kordhaysaa awal isagoo waahan baa la yaqaanayo carisho yar yar iyo wax yar ka furan yihiin maanta waahan aad aragtaan bilinada kor loo fiirinayo caalam oo lacagta adduunka iyo waxaan ku yiri shaqada ka socota aydan malaynaynin ayaanu joognaa alxamdulillah rabbil caalamiin baa leenahay ilaahay baa mahadle ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkayga uu noo geliyo barwaaqo iyo bashbash imika dhar ka dumarka kabaha boorsooyinka ayaan ka ganacsadaa magacaygu waa ka ganacsigaygu marka ma sha Allah laakiin hore waxaan anigu ka shaqaysan jiray muddo 15 sano
hodheel hodheel ba ka shaqaysan jirtay hodheel ba ka shaqaysan jiray laakiin Somaliland kuma ganacsan jirin 15 sano Somaliland ka maqnaa Uganda iyo Kenya marka wadankii hooyad ku soo guriyo noqotay ma sha Allah ha si aan wadankaygii farxad iyo niyad wanaagsan iyo waxaan ku uri quruxda wadanka maanta leeyahay qiimaha wadankeenu leeyahay inay ummadeenu qiimeeyaan oo dib loogu soo laabto dal iyo dabad meel kasta la joogaba in la isugu yimaadaba fiican waayo wanaaga yaala iyo farxadda kaliya aan ku helay maanta ku dareemayo wadankeena waxaan waligay arkay ama aan dareemay lacag kasta adduunka hadaan helo meel kasta adduunka wareego wallahi halka intan sanadka aan joogay Somaliland ayaan si wacan u gamo si wacan u seex ma sha Allah walaal ganacsigaagu markaa waa dabaqay waa dabaqan waxsan hayaan deganahay ganacsigeygana waxa la yiraahdaa idil fadx queen collection kulay intii garanaysa way garanaysaa TikTok baan kulay caan ka ahay oo dadku igu yaqaan queen waa wax weeyaan wada garanaysaan queen aan garanayna suuqa weyn waa heen bad imanaysaan wax walba way hayaan dharkii dumarka boorsooyinkii kabihii nooc walba sidoo kale cuudadkiina waan haysaan ha cuudkii waxaan haynaa filsan bukhur oo wallahi inaan wali adduunka intaan joogay cuud iqanciya cuudka udgoon oo noloshayda aan arkin ayaan haynaa isagana iyo cadarro udgoon aan idinka go'aynin kabihii boorsooyinkii fadxa queen marka imika dadka daawada halkan ee halkan kugu yimaada فيديو soo daawada discount baad siinaysaa ha si fiican video soo daawataana timaadaan halkan waad fadxa ku inuu timaadaan discount baa la idin siinaya waxaad sheegaysaa in YouTube-ka inay ka soo daawateen aad baan kugu maaliyaa aad iyo aad baa walaal ku maadiya ilaahay ganacsiga ku barakeeyo ilaahay waxa ka bariyo walaal farxad iyo ganacsigaas inuu guul weyn aad ka gaadhay insha Allah ma sha Allah walaal thank you baan ku leeyahay waxaan ku suganahay iminka dusha sare ee suuqa weyn waa hemba ku suganahay sida arkaysaan dabaqan midba anaga ugu sareena filaya adigu xagga sarena waa roofkii weeyaan marka halkana ugu sareysa hoosta wada aragtaan ganacsiga ka hooseeya waa laba dabaq saddex dabaq waa dabaqi laba dabaq weeyaan waxaana ku yaala dukaamo aad u tiro badan baa ku yaala runtii ganacsiguna wuxuu socdaa si xawliya dadku waxay noo sheegeen inay ka soo kabanayaan dadku waxay leeyihiin bariga hore ay dadku ka badnaayeen laakiin waxaad moodaa imika waxay dhahdeen dadku way la qabsanayaan la soo qabsanayaan dadkuna waxay runtii u badan yihiin waqtiga habeenkii ay ganacsigoodu aad ugu badan yahay marka suuqani waxa weeye suuq runtii kamid ah suuqa ugu casirsan Afrika uu kamid yahay suuqa waa in ugu weyn runtii marka sida loo sameeyay waa qaab runtii aad u qurux badan oo safety ahaan haday noqoto dhinacii safety-ga iyo haday noqoto dhinacii kale ee quruxdaba si aad u wanaagsan baa loo qaadayay marka nala socdaa nolosha halkan waxay taagan mid kamid ah mulkiilayaasha ama ganacsatada halkan ka ganacsata magaciisa sheeg walaal Yaasiin Cabdi Cabdilaahi walaal Yaasiin Cabdi Cabdilaahi waxa leedahay dukaankan weyn ee la yiraahdo Mugani Yaasiin maxaad iibsan kabaha dumarka iyo shantadaha iskuulka iyo kuwa xaragada dumarka alaab aad u fiican bad iibsan xagad ka keentaan China iyo Turki baad ka keentaan walaal ka waran ganacsiga suuqa والله ده سوق waa kii gubtay hadda dib loo soo degay dhismayaashuna sidii hore ma aha aad bay loo qurxiyay dooyinkina way banaan yihiin oo sidii hore ma aha weynka haduu ilaahay ma keenay wax weyn meel ay damiska soo maraan baa la helayaa waa la helayaa wadada waa taas laba head bay noqotay oo laba gaari baa isku dhaafaya marka horena waxa ay wadada yar luuqaho dadku
aanay isdhaaf karayn marka waa maasha Allah weey walaal waxa ilaahay ganacsiga ku barakeeyo dadkana waxaan leenahay mugaani waa dukaan wax walba haya sida uu idin sheegay dadkana soo dhaweey qofkii halka ka daawada ee ku yimaadana discount badsiinaysa waan soo dhaweynaa insha Allah aad bad maasanta walaal walaahi suuqa waa aad iyo aad buu wanaagsan yahay markaas aad buu wanaagsan yahay sidii hore iyo iminku ka sii wanaagsan iminku faal helayo gaarigu soo galayayo dadka aan is cidhiidhin adoo iminku ka wanaagsan yahay sidii hore ka qurux badan yahay ka dhismo wanaagsan yahay marka walaal waxaad ii sheegtaa iminku ka wanaagsan yahay baad markii hore isma dhawaa yes okay sax walaal aad baad mahadsan tahay adigoo mashquula oo waxa weeyaan ku jira waxaad iibsanaysaa ayaad haddana naga aqbashay inaan qorays ka qaadno aad baan walaal ku salaaminaa walaal magacayga celi hooday ka waran suuqan suuq qurux badan oo faalada la dhisay haye suuqa hore suuqan suuqaad ku haysataa aad iyo aad walaal way aad bay idin salaaminaa maalinta habeenka idin wanaagsan halkan wali waxaan ku sugannahay suuqa weyn ee Waaheen ka soo horjeedka waxsan haye halkan waxa la yiraahdaa magacaygu waa Suhayb waa ku salaamay walaal waan ka qaado walaal Suhayb walaal waxaad ka mid tahay dadka halkan ganacsiga ku leh ka waran ganacsigaaga walaal ganacsiga waa top saaxib fiican haye lambar 1 weeyade haye maxaad iibsan waa lambar 1 saaxib oo cash tumaysa guraana haye ma sha Allah baashi la isku jeclaamad oo guraysan ma dumarka ka reebtaa mise ragga keeba u badan deer saaxib dumarka daanyarada wadana ka qaadna lacagta maxaa dumarkuna on kiibina dumarka noo fiican dumarka idin fiican wax kiibina oo idin dhaqaaleeya saaxib ilaahay hadday ilaahay dumarka inoo daayo aad walaal maxaad iibsan waxa iibina walaal eeg ay timo fara badan duruucda xariirta duruucda waxaan ku yar qaba walaalkay hagan duruucda wiilka wiilkii maartan xagaas naga soo horjeedan waa xariirtii caruurdeedu waxa la carwo dhabeeye top style qaybta halkan waa qaybtii Waaheen weligeed haan jirtay xaga kalena waxa weeye xaga teatrkan qayb baan ku leenahay aad iyo aad marka dharka dumarkan galna ay timada kala duwan dumarka aad bad walaal u mahadsan tahay marka markii hore imika keebu fiican suuq saaxib dar ilaahay marka laga hadlo markii hore imaka ka fiican sanad kasta wax sii kordhay horumaran sii sameeyno mooyaan haade dibna marna ma noqono waa meesha quruxdeed iyo imaka qof hagan jooga ayaa mi hore suul baan ku soo shaqo tagi jirnay shaqo ilaahay ugu dheer ma sha Allah aad bad walaal u mahadsan tahay ilaahay ay suuqa idin barakeeyo ganacsigan maxaa la magaciisa waxa la yiraahdaa carwo dhabeeye hablaha daawanaya TikTok page ka soo follow gareeya hablaha daawanaya halka ka soo daawada YouTube-ka discount siinaysa Soomaa discount fiican ma siinaya ku soo yaa qalbigina ilaaliya walaal toddoba haloodana dhasho halba qalbigoodu ma طبعا لو قف ان يرور سنه يس يا لو قف مسير ورستا kan halkan waxa ila jooga hablo kamida hablaha suuqan maanta ka adeeganaya maxaa dhigata walaal waxaan dhignay IT-ga ma sha Allah marka isku halkan ku dhex yaala miya ma xagaas ku weeyaan isqaad weeyaan marka halkan wax ku iibsataan ma waan soo wadada weeyaan wadadii weeyaan laakiin aad u mashquul badan tahay
asxaabta waxaanu ku sugannahay weli waaheen mool baan ku sugannahay ama suuqa weyne waaheen annagu halkan lugaynayno oo wax duubayna ayaa waxaa naga soo horbaxay restaurantkan ama hoteelkan ku dhex yaala waaheen oo runtii Acre Vlogs uu ii ammaanay cuntadan waxaa naloo keenay alaabtaas naan breaders sidoo kale faasuuliyadii iyo wax isku jira bisaaskii iyo basashii baa la socda mushakalkii marka aan isla aragno waxaan horta sharaabka dhadhamiyo daawadayaal barnaamijkii aad ka daawanayseen halkan iyo suuqii waaheen aan idinka soo duubaynay intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa runtii suuqan oo ah suuq aad loo casriyeeyey hadday noqoto dhinacii safety-ga hadday noqoto dhinacii quruxda waa suuq aad iyo aad looga shaqeeyey sidaan horeba idinku sheegay waana suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa barnaamijkan lagama geyoonayo suuqan waxa weeyaan adigoo imaado unbaad runtii aad ka dhergi kartaa kamarad kagama dhergi kartid marka waxaan leenahay suuqan ciddii ka shaqaysay iyo ciddii maxaa isagoo design garaysay iyo kambanigii dhisay iyo dadkii lacagta soo ururiyay iyo dawladdii dhistayba aad bay u mahadsan yihiin dadkuna aad bay runtii ugu faraxsan yihiin suuqan casriga oo runtii ah suuqa ugu casrisan Afrika waa Bashiir Taani oo idinka imanaya bartamaha magaalada Hargeysa aad baan saaxiibadii salaamaya assalaamu calaykum Yes, sir.